بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورتادي أدبان دين سلام يا جودهان تيمبا رجي دمر سمارة الصحة ملا كوسجن تيمبا يرير سومالان وحنكو سلام يا لبض قعمود با ونكو ضيع عبسرها كتلمان حلي واركيسين طبعا إن أنو ما شاء الله تقال هو صعونيا إن شاميرنا حالته وكيل في كيلا صوق علي هذه الشر ولا سلام يا مؤمن مسلم dadku waxay taqaanaan qof dadka de live-ka iyo waxa aan qofka soo qaban karin waarkiisan sida quruxda badan ee super fidini isagu fahmay markiiba horana isag liftigiisa bir raayir fahansi ma sha Allah intaas un baynu isku yara khalad fahanaya sida kale oo dhan waa iska hore everything is hore wax dhibaato ma jirto libaxna ma jiro shabeelna ma jiro dadkaygu aan wada jecel dhamaantiin ku yar Facebook-yadu idinku wax badan baydan qaar fahansanayn dagaalka idinku jihaysan ayaydan fahansanayn faqashti social media soo fadhiistayba gebigoodiba social media ayay isaga nacamleynayaan dagaalkii beriga hore xabadda waynu kaga adkaanay kii ay diyaaradaha soo kaxaysteen waynu kaga adkaanay rag baa kaga adkaaday raggii waxay doonayaan inay taariikhdoodii masaxaan oo baabiyaan haddana waxay isugu habar wacdeen halkan anaguna aanu joogno waanu la joognaa bartanna waanu ka saari doonaa halkanna waanu ka buufin doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay nagu simo waxaanu soo noqonayaa mawduucaygu laba qodob unbuu daaran yahay horta mid waa kow waan ku salaamayaa suldaan cabdiladiif maxamed nuur qoru baxay aad iyo aad baan kuu salaamaya inaad allah baarig mid cabdicasile adoo halkaasaan maadarayna isna waa salaamaya warna maca salaanta may kala carartaa waa allah baarig kuwa beriga hore ka falaagoobiyey waa lay sheegay dee warkiina waan hayaa beriga hore reer daarku deerinana war maca hala dila ka ah war anigu waraabay baan iska hoosa maalma meel uga soo geeyay wanigaas ka soo dhex baxayba بلوشتي يا بلاشتي يا وحي وان كسر ربحي سو كلا دمان وحو دد عادي ما هي موت وعيل قبيال من بري وقله إن شامير وحي غير ما كان يابو كي كسر دو بودي سوقنا بلين كقبيال ده فرماتشان إنير دا قدر إنك تصير ما عنده توحي روح عن كسمينا يا ماشي اللي ده مقدشو تعلوي برتو قاعدين أنا في ماهيو وبنتي هدو قاعدين نفو هيو أحمد مدوبي أحمد محمد سلام بوكدين لها دبعت تضيع شعب هناك سمايو وكيل صوع عرري اللهم مستعان wax la yiraahdo waxaan u sameeynaa taalo u sameeynaa ninka la yiraahdo Sayyid Maxamed Abdulrahman taalooyinkii uu qabyaaladii alla qabyaaladiisu xumaa oo wariya waa qabyaalada la yaabtay Sheikh Bashir waa garanaysan Sheikh Bashir halgamaa reer Soomaaliland waa nin isaaq waa nin habar jeclaab waa tii Ingiriis weydireen taariikh badan buu ka tagay wuxuu u dagaalamay Sheikh Bashir waa loogaa sayidka ninkii ka daba baxay baa Ingiriis way gaadana way soo qabteen واتي قبيلة فراها بدن لقى تريني لها نهرقدي بشيروجي تقدر عمر رياقين راح تقدر يسرار روشنا وهرب بالحقوق بلنو قبيلة استطاع مالو يقصوري إلا وحنا معايا أنت واكي هروفي يوان كي أنو يقصوري يموت ودوا حبرت شو إساق يا وانا كم بره رانوجا توش بوستا سياد بريات دي إساق يا كلار دي هوي هبرقدر يا كلار دي ما شرطان كيسقوا يرقى فيها وما راو كيرا بقنايا برقيد دي يقص دي فؤاد وحبو مير رديني يقعد دي وحبو مير ردين بقى nimankan la yiraahdo ogaadeenkana ninkii marbaxay ee la oran jiray in Umar Jeeso isagana hooyadii isaaq ahayd ayaa yeeray halkaas soo magras kaas waa ku Sheikh Bashir ruta xagaad ka tagtay bal hadaad qof tahay Soomaalinimo iyo halgan iyo dadnimo iyo waxa leh Sheikh Bashir ma ninkii inta la soo qabtay laba dilayba ee xaajada afqalooc abwaanka Allah u naxariista abwaankii weynaasna reer Sheikh Isxaaq ee reer Ceeriga bay habroon soo gabiyada ka tirinaya faraha badan ilaha dulliga ku jira noloshooda ku deelqaaf way dad awood dadku markaa ma leeyahay markii Ingiriisku soo qabteen ay halka burco ay meedkiisii jiideen yiraahdaan bal carx xitaa aasaba waxay wuxuu ku dagaalamay muxuu ahaa waa ninkii xitaa soo saaray culimada burco dhan tog dheer intuu isugu yeeray ayuu ku Bakeeri buu dhaxdhigay sida quraanku akhrin nin walba inta taqaanada quraan ah nin walba quraankii buu akhriyay markay quraankii wada dhameeyeen buu Bakeeriga ma Bakeerigaasaan quraan ku jibinayna gebigeedu nin waliba intuu yaqaanay markuu akhriyay ayaa Allah musta'an kaas muxuu ka hadlayaa taro waa wixii dahay waan inta ahaan gadaay waxaas de waa iska ilma ariyo ilaahay baraare
waxaan dee halkan aan ka buufinaynayo dee social media xabadii waan kaga soo adkaanay moogta social media hanay yimaadeen maskaxdiina furta dadkani dad ma hadee anyway sheekh bashir baan sheekadiisii din wadaan waxaan uma joojiyay waxaan dee cayayaan baan aqana saasaan buufiya moogta waxaan dee maxaan aabahood baan hawada ka saarnay oo aan u darnay xabaali suuligi maxay ahayd meeshii la odhan jiray Nigeria meelaha Heathrow Road kana walahi waan ka soo saarnaa hawiyana way tooseen ragga xaqlayaasha ay Muqdisho martiyeedu daran baan noqoteen sheekh bashir markaa quraankiibu ku wadaadada ku wada akhriya wadaad walba intuu yaqaanay buu ku akhri dabeetana markii quraanki dhameeyeen buu okay waa dhamaysan soo maaha intuu soo kacay buu ku dhuftay waa ninka soo saaray oo soo caawa barnaamij weyn baan leenahay Allah ya barik dabadna wuxuu yiri qul wallahu ficil buu baahan ficil in ficil lagu daro u baahan yahay buu dabadna kii ciidanka samaystay banaanka u baxayba ee ninkan cadaanka maarta inaga ba kaxay waxaan too beenalayaan markay ka hadlayaan taariikhda been bay ka sheegaan anagu markay ahaayeen daraawiishta ninkii loorin jiray sayidkii shariya khayr baa lahaa ayaa halka ciidamay soo geystay waa la jabiyay waa tigii soo hawada ka baxay ragii markii dambe midnimada iyo Soomaalinimada iyo in shantii isu tagaan reer Somaliland bay ahaan guud ahaantoodba Somaliland bay ahaan iyaga miya khasbi buluusha maalinta ciidamay khasbin imkaan inaga dib uga baxnayba markaan imkaan idin aragnay basar xumadiina يا أخلاق حمدين يوحو دوحي هين بان ديبو قبحنا يمن كنا كاسوها فارح عمرني كيلو رنشري تاريخ دي سمالك استبوي تعالى تدكو يدك ودينا فوره فارح عمر لفتي سنانين وحوها ريس سمال لنا نفرش اسحاق بوها دم بماها آيات قرآن بونسا إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نها برج على غير ظاهرة بوها وحسن ظاهرة شيخ بشيرنا نها برج على بوها ويس محمد ويوسف رجع صورني شيخ بشير نكلا فارح مار جبي جسر إنجليز كم مسافرين ميمون بابي كيرون وركن مرتها ما يسوون الحكولات على ما قالين كو حكولات على مصر تبغى أنت كابتن بي يمن سدي بالكيلو نكى كده على مصر إندي أو كلا كاب كاسوكرة أيوه هو دي نكى لورين شري مهات مجندي أو كلا سدي سوكرة رجع ساعة هذا بقى أيا حس مودن أنا أنت warqadar meel soo saartay baa islaantiinii baa halkan ka timi oo mid kale gede ka timi oo Heathrow Road Somaliland ragii u dagaalamay ee ragga xuquuqdeeda markasta way joogan buluush akhran u dirana ma soo qabtay inaad buluushtu balaashta la moodo in yar baan sii buufinayna haddaan soo ruuxay caawna waan sii buufinayna wardadka waxay aqli yeesha in Ameerika hal la daayo hal laga haro in Ameerika sababtoo ah buluush balaash kooda xitaa soo qahawiya kooda xitaa القوم اللوذية مدرس راح مني وريا وحبي كرديان وإسك أورنيان وإسك وضني حالته إنت أمير حاله أنا قول الله يفكره أو ضيق يراي لورين شرع على خلف كلام وقولوا ما شذا غار ودبركم قدا ودي بيهدمي وما تحتوي في الصومالية كلاماً أديك دراتا قاركوا بلوغيما وهو فوران وحن ما يفهم سنبه قار ما أديك دراتا شكرا واري كده ولي واد قرنسا والله ما نخش مدرنا سبع على هذو على برا حيوان مدي أو كشك يوم قرر يوم بالبلار كاي شعلاتي بالبلار كاسر بالبلار كسوق سمانسا منا بالبلار كبقرين نبا سياسية وقرن ميرسران كذا نفسه بالبلار أديك دراتا بابن بلوغ صارم نكاح حتى ليدا هذو الله المستعان مولر شرمل أو دي محا أنيك هوليس قفك إنترنت فيرس كيس لقمة دي لما دونت دوني ثاني واتشاس halkan waxaan ku wada noolahay Christian Jewish iskuuladan wada dhiganaa meelaha goobaha tareenadana isugu nimaadna nolosha guud baa naga dhaxaysa no mashquul koofiyada sare iska sito wixiisa ninka naymka wabanin muslimaba mular charmal isaga joobigiisa sare laakiin hal qodob baan ku wada soconaa maxaan ku wada soconaa inaanu ragga ahaa reer Somaliland iyo qadiyadan ay rabaan inay broosho balash libax gabil aad baan ku salaamay Allah ya barik in aan dabcan wax aan waxba ahayn ay wax aan waxba ahayn ka dhigaan kuwana ay yiraahdaan ay hoos u dhigaan intaas aan ku socon waan ku saxsan saamid kala qornaya walahi aan ka aaminayno waxano adiga qaar horan ku blog oo bar jeclaa waan ku soo blog baan qoraaba halkan uu joogaa Toulouse bay qaar joogan mas'ala halkan ay Francis maskata Francis ma xayawaan hadaad ninkan waaba soo noqday oo nin diinta muslimka haystaba imka hadaad diinta kristanka nacabtiin كمان iyo waxa la idinku siinaya iyo Toulouse marba meel idin geenay Soomaalidu waa full of nasas wax barta hadaad gaal nacab tahay you must go to Muslim countries dalalka muslimka aad xalan ka soo doonto
beenaalaysana intay tukatay intay tumatay haddana tukataa intay wada tukato intay tumatay hadhow kuraysa subxaanaka yaa cadiim ilaahay ha laga yaabo ilaahay adigu ka yaabo haddaad ilaahay aad ka yaabayso aad muslim tahay dooro dalalkii muslimka aad anyway taasna halkaasaan dhig walaahi muller ninka lahdaa waa nin adag allah ya barik warmaya si kastaba hawlahayga waan wataa suldaana waan buufiyaa dee waxan si kalaanay lahayn dee anigu t v ma haysto website xilna ma hayo waxan maan mararka qaar eedbiyaadee kuwan baan idhaahdaa inaan waa idinkuna daa yaabina wuxuu ninkii jiray darawalka ahaa inaan waabshaan ismoodaayo ama weedhaafadii baa wada wareerteen dee hala yaabina waxaan anigu aan la dagaalamayo markaan dee la dagaalamayo qaar baan kabaha yaro hoose kusii dhufanayaa qaar hidh baa lagu dhuftaa qaarba sibaa loo galaa qaar kale waa la sii yaro dharbaaxaa qaar meel yarba hal yarbaasaa loogu saydhiyaa oo iska dee ilma xayawaanka nagu farabatay oo social media waxa keenayba garan bamaynaba waasicid fiigoina raad baan kuu salaamayaa beritagelinka dambe waa soo baxaya baaris wada joognaa insha allahu tacaala haddii ilaahay nafta igu simo ninka halkaa kasii sheegaya baane buluushay al buluushin la balaashin berito baaris baan joogaa haddii ilaahay ka dhigo meesha la idhaahdo laashaabeel baan joogaa gelinka dambe halkaan isugu nimaado dumarka waxba been haw sheegina anigoo macaalanka somalilandsta oo somalilandra oo cabdisalaanka aad arki jirteen ah oo idin wada buufinay oo idinkula beenaalayaal baa tihin fulay dhashay fulay baa tihin fulay ahoo yaaca oo buluusha baa tihin baarisan oo ahaato baarisan isugu nimaado yaa ilma xayawaan waxaan usoo noqonayaa haddaba khaayinnimada farmaajo safiirkii kenya u fadhiya ee maraykanka kenya u fadhiya warkii uu caddeeyey wuxuu caddeeyey oo uu sheegay inay iyagu maraykanku ay ku khasbeen inuu kiiska badda uu ka noqdo halkaana yaa badda kiiskeeda geeyey nimankaa hawiyo toosa allah ya baarig toostaba iminka oo waa dulqaateen oo gobaahayden oo si fiican boo waxaanaa soo dhawaysan maanan maalinta dhowteen ku lahayn markuu taalooyinkan uu xitaa qabyaaladeynayay uu wadwaday ujeeddadu waxay ahayd inuu dadka indhahooda kaga duwo meel kasta uu ku fashilmaya ilaan waxa la layligu biyaha kashiisa ku jiro ka didaa ninkani inuu dembiire yahay wuu sugi inuu khaan yahay wuu sugi inuu ummadda khiyaamayn doona gab diyaarad raac meel kale war wallaahi adigoo fool xun suulibaad ku dhimanaysaa ku yaalla qadar baad imanaysaa meel kale oo aad iman kartaa ma jirto maraykanna kusoo noqon maysid abiyeno wuu ku arkay inaad tahay vailer political teenage inaad tahay ciilqab ah oo argoosi u yimi oo argoos doon ah oo maanta soomaaliya xilligan iyadoo dadku u baahnaa wax isu soo jiida oo ummadda oo dhan ayaan wanaag baa ummada wax lagu wadaa laakiin in ciilqabaa tooshka siyaad barre anagaa ridno reer somaliland anigaa rido waliba cabdisalaan ebel baarisan sugu nimaadno macnaadu safiirkaaga xitaa baaris jooga aniga igu yimaada baaris ninkii riday waa aniga maxaa kale ka hadlaysa kenya markaa safiirkeedu wuxuu u sheegay oo warbaahinta u sheegay inay ku idhaahdeen adug ka noqo kiiska badda muxuu idinka dhigayay horta kan waa la hayste kan ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah falaysa minna xitaa warkiisaan soo helay kaasu xitaa durriyadda ma aha oo durriyadda meel kusii qorta waxaa laygu dhow ninkan reer jigjiga iyo waxbuu haan jiray bal soo baara ninkan kan maaragtay ra-isul wasaare ku-xigeenka beenalaha ah ee dee adlaxa caadiga aya reer jigjigu haan jiray dabeetana abschool iyo muujo waxbaa iskala dhaldhalay oo xitaa isaaqba maahaba dee waxaan aan bilaa xayawaanka hadda qashanayninba ninka raa mustafa qodaxa ninkaas wuu ka noqon doonaa meeshaas anigu meeshaa waxay naga joogaa ninka la hado mustafa qodaxu raggeediya anuu ragga ninkaa waa raggeedii kan kale habar jeclana waa suusta walayayo hawlihiisu hoostaa ka wataayo isagu waa iska shaqaysanayo markuu shaqo helo shaqaysanayo maaraya waa markuu shaqo helo shaqaysanayo kaasuu iska shaqaystaa nin odaygaa kale timaha caadlana garan maayo isagana wax ka siiyade odagana xaashina waa iska miskiin ilaahayo cirku ku taklin oo iska daacada oo dabadna mala in la dilo iyo waxna uu ka baqanaya le meesha dadkay ku dilaan kan ra-iisul wasaare ku-xigeenka baa yimi isaaqba maahaba waa amxaarada xitaa kuwa la idhaahdo kuwa baalashlayaasha ka hanjiraad sama maxaa lahaa dhabuubtana maaha ee walaytada ee 500 marba mid ku imanay qodhay baalashka ku soo maraya waa nooca kaasna la ku qorta kuwa le walahi baanu kaasu dhiig isaaq iyo mid Soomaaliyeed midnaba lahayn wuu farmaajeysan yahay oo ciilqabaysan yahay oo farmaajo ku yiraahda sida eego kale halka ku carar halka mar okay yes man halka maraya hore deeko
waxaasuu dee ka shaqeeyaan war hida road waa la soo fashiriyey kiiskii badda inuu isagu ka dambeeyey ragga ahaana iyaguna way tooseen ninka la yidhahda cabdiraxmaan shukuur hala taageero fiqi hala taageero markii horena way allahu mustacaan gobonimay sameeyeen oo dee way aamusnaan waxaysan ruuxan shaw isu miskiiniyey dib oo dambaysadaan u aamini doonin wuu isu miskiiniyey wuu isku nabay dadna iyagu beriga hore si hagar la-aana bay u taageereen way soo saareen nimanka habargidir mid kalena aan idiin sheegaya shaydaan si iska ilaaliya shaydaan si samayn arag ka shaydaan si ilahdaa wallahi iyagu u shaqeeya fahad yaasiiniya buu u shaqeeya fahad yaasiiniya waxaas u shaqeeya waa beenaale weyn laakiin ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan shukurow fiqiyow ragga adag ee aan isbedbedelin ee iyagu halganka kula jira ee ninkan iska soo tuuraya waa ragga ha la ogaado war markaa aad iyo aad baan idiin salaamaya guriga gobonimo caawa jaamir caawa inoo ahaato kolley maanta waan warkaagana waan hayaa maasha allah beritana haddii aad dee halkaas ugu iman doono xaafadii adigaaba inoo garanayaba meesha weyn ee lagu xuso dagaalkii labaad ee adduunka dadkii ka qayb galay oo reer somaliland oo macal ay xabaalaha ku qoran tahay somali british yaa kale somali british hadde war reer somaliland u baaha ayaan halkaa ugu tegaynaa ha walaal sudaanka wallahi sudaanku ogi daahir calaysu waxa weeyaan kow kaas waa iska dee mahdigeygaas oo kale mahdigaa maarata xaggaa joogo kale weeyaan oo waa buluushaysan yahay waa balaashaysan yahay oo wax nooc kalaa dee waraad baan kuu salaamaya wadigaa imika waad yara mashquulsantahe hadhow aynu ahaato intaasu ka hordhac bay ahayd waa intii idaacaddeenii oo dhinac kastaba aanu ridayno oo aanu leenahay horta farmaajo waa qabyaaladayste xaafadiisuna kaba sii daranba taallooyinkiina wuu qabyaaladeeyey sheekh bashiirba oo aniga malaa iga soo urinayo haddii cid la doonayo in sayidka hadduu sitayba dee sheekh bashiirna wuxuu soo qaadin waayey ilan sheekh bashiirba ingiriiska uu la dagaalamay soomaali o dhan baa garanaysa way isweydiiye maxaa sheekh bashiir magaalo gobol kasta oo soomaaliyeed waagii berigii hore ee dee saxda lahaa intaana waxana dee soomaalinimadii ku baabiin oo ku xaarin maxaa dugsigu ugu ooli jiray sheekh bashiir ah isweydiiye maxaa loo soo qaatay sheekh bashiir nin halgamaaye buu ahaa nin ingiriiska la dagaalamay buu ahaa markii dambena waa kuwii burca ku dilay ee soo qabtay daadis wayba oo reer muqdisho iskuullama ku arkiteen iyo xarumo basketball oo lehdo sheekh bashiir wax isweydiiya maxaa ahayd dowladdii isaga ka horreysay siyaad barrow taariikhdii dhibigeesaba taariikh dad aryullaahi baraara bay nagu soo saaray oo inaan garanay meelay ka yimaadeenba taariikhdii waagii dowladdii miyirka qabtay ee aadan cadde ee sida dimuqraadiga loo soo doortay iyo tii ka dambeysay ee cabdirashiid cali sarmaarkii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee wadamada askariga ara surwaalka gaabnaa uu dilay waagaasaa sheekh bashiir iyo faarax mariya tima caddana isaguna taariikh walha oo taariikhdiisu waxay tahay ninka caalankanba u heesay dee caalankan ay dee baabiyeen ilaha aan siduu yahay eege sarreeyo manusqaamo kanasiib kana saar allahu mustacaan cabdiidaan taariikh buu lahaa ninkii la odhan jiray allahu mustacaan isagana abwaankii aan maalin lahaa sheegna maandeed reer hargeysuusna ahaa saaq buu ahaa oo ninkii la odhan jiray isagana allahu mustacaan cali sugul cigaal dun carbeed oo magaciisaba kariba waayba sugul uu iska lahaa isbanina saaqo habroon isagoo ahaa oo raggii dee waxaanba u heesaya walaalaha hargeysa iyo rag kale oo qaar niman gabooyaana way ku jireen maasha allah oo nin la odhan jiray abwaan faarax baa ku jiray ninkan kale jabiye abwaan jabiyena waa ninkii lahaa heestii aan maal haasheegna maandeed maxay lahaayeen bal waxani mar damubay waxay lahaayeen baan idiin sheegaya inay ummadda isku diraan inay ummadda khaynimo la soo dhex galaan inay wax boobaan in iyagoo kabcadcad oo gebigooduba doofaarha dhaqan jiray dadkii soo dhex galaan oo ay ummaddii madaxa isu wadageliyeen intaasay taarikh ku lahayn nothing else sagaal stateski baana soomaalidaba noqdeen anuu ka hor baan soomaalida bahayn markaan u haysaynay soomaaliya iyo soomaalinimadii shanta u haysaynay meel ay joogeenba lamama garanayaba markuu cabdillahi islaan timcaddi heysayey markii sheekh bashiir la dilayey markii faarax omar allahu mustacaan uu isaguna wax qorayey markii cabdi iidaan uu gabayada u tirinayey markii allahu mustacaan barkhadcas uu gebiyayey xaggay joogeen xitaa ninkii la odhan jiray sinha cabdilla xasan reer somaliland baa abaabulay oo halkaa oodweynabaa xoole iyo lacag iyo wax kastaba laga siiyey dad reer somaliland baa la socday dadkan dee daraawiishta ilan iyagaa falana iyagu laftigooda xaggan iyo somaliland bay ahaayeen qabyaaladina baa jiidanaysa ku dhahayn gedaanu xusunay war geda waxbay isuma tiidinoo waxay soomaalida tahdaa oodi ab ka dhow ab
abkan aad sheegaysa ninkan aydaan garanayn macawaaba migisba meel ay ka yimaadeen lamama garanayaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamayaa in jaamiir wixii helay baan la yaab wuxuu soo arkay baanu ka yaabnay anagii baa isla yaabnay waxaanu dhex galnay baanu ka yaabnay heestaasuna soo socotaa waxa la waa wixii waa la yaab balada heesta waana caawin jaamiir waana soo qabanaya insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.